aan ku gacan saarnay beeji laga yaaba maanta inay tahay maalinkii dunideeda igu dambeysay. I'm sorry baby. تحسي بوبو بدن مربو دكسي كوك مثلا حالي فوت كولر بدن دحدا دعا. السلام عليكم صاحبيال ملك استاذ جوجتان سيكستو مقالكي جدين سو غاريبا halka diga daawanaysaan waa channelka Shaacar Sheekay walaakin Shaacar Sheekay ku soo dhawaada barnaamijka hadalhaynta bulshada oo aad kugu hayo maxaa ku jaban aniga gaala ahay waa taa saaxiibayaal intana barnaamijkii ugu gudgelin fadlan subscribe saar channelka sidoo kale leeyahay muuqaalkan si uu gaar saaxiibada gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimiintaaba maanta waxay u tahay maalin weyn kadib markii ay ka guul gaareen godna ay ku rideen wiilkii Soomaalida sheeganayay asagoo sarqaansan aflagaadeeyay nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee nacalada ku dhacday wiilkan ayaa hadda wuxuu ku jira xaalad halis ah wuxuuna cod uu la wadaagay dad familkiisa ah ama gabar sheeganaysa inuu xaaskiisa ay tahay oo la wadaagay ay muujinaysaa sida halista ah ee wiilkaasi ama arinta halista ah ee wiilkaasi uu lugaha kula jiro taa ah inuu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaanba nafsadiisa maalmaha soo socdo oo waay hadaba arinta wiilkan iyo xaalkiisa sida uu ku dambeyn karo iyo guusha ummadda Soomaaliyeed ay ka gaartaba intaan la wadaagin bal marka hore codkiisa hal iyo labo aan dhageysano ana ku raaxaysan adduunka markii hore la ikana qalab wax ah malaha yaraanteeda nolosheeda sidaas soo xumaatay intii la soo waay ilaa weynkayga aan iska soo dhibtooda fursado badan oo Ilaahay soo siiyay laakiin tan waxa laga yaabaa ani aan ku gacan saarnay beeji laga yaaba maanta inay tahay maalinkii dunideeda igu dambeysay. I'm sorry baby. igar al noqdo Ilaahay waxaan iga rajaynaa cimri dheer caafimaad soo farxadna igu noolaado haddii aan dhintana waa kaasa iska tiixaf baby. wiilkan ma doonayo inaan halkan arrimihiisa ku sharaxo waayo 5 maalmood oo baraha bulshada si weyn u haystay muuqaaladiisa la faafinayay ayaan ka gaabsaday aniga oo diidanaa in hadalkiisu sida uu rabay meel leer gaarto isla markaana uu dantooda u gaaro codka wiilkan waxa laga dhadhasan karaa in maalmaha soo socda sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad la soo hortaago isla markaana lagu xukumo dil waliba dilkaas oo ah daldalaad waa xaalad halisteeda wadata oo laga dheehan karo sida ay Turkigu isla markiiba aga falceliyeen kiiska wiilkan ay inta qabteen god madax u gadhiyeen sida kiiska wiilkan ay dadka Soomaaliyeed uga dhidiyeen isla markaana ay gacan weyn ka geysteen inay dawladda Turkiga wiilkan muuqaaladiisa la wadaagaan u fasiraan kadibna ay xabsi ku tuuraan oo ilaa heerkan ay soo gaarsiiyaan waxay muujinaysaa in wali ay jiraan dad muslimiin ah oo diintooda jecel oo Soomaali ah oo ku dhiiran oo ku dhagan taa waxay muujinaysaa inaan nahay ummad muslim oo 100% isla markaana qabiilku raba ka soo jeedo qofku raba ahaado qof kasto isku dayo inuu diinteena suubaniyo nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee inuu aflagaadeeyo isku dayo in sidaan iyo si ka daran ba ay sugayso taa ayaa muhiim
muhiim ma ahan qofka waxaan uu yahay ama sharaxaadda uu qofkan yahay in sharaxaad muhiim wax laga sii bixiyo muhiim ah, laakiin waxaa muhiim ah tan oo kale markay timaado in qofka qof walba awoodda uu leeyahay u awoodo inuu sameeyo. wiilkani sida uu meediyaha kusoo galay ayaa laga dheehan karayay inuu waxaan iyo wax ka daranba soo wado, waayo doofaarka ficlaan baa loo cabaadaa. wiilkan tan iyo markii uu meediyaha social media soo galayay waxa uu marka dacwoonayo waalidkiisa oo hooyadii dhashay ayuu lahaa darteed baan isku dilayaa. arrintii waa u suqay weyday, filimkii waa u gudmi waayey, baashi waa kala kici weyday, views badan waa lagu heli waayey. haddana wuxuu soo geliyey anigii xaaskeena la cunsuryeynaya, gabadhan aad u jeediin oo baa qorshe la timid bay tiri, waa iskuana diideen, way shaqay weysay. dhalinyaro youtuber oo aan aad wax mahay oo aan leeyahay dad aad u dhaqan xun baa tiin, dadka aad media horkeenana ka fiirsada baa garab ku siiyey inuu xoogaa uun awal markii hore lama daawo jirin, wuxuu ahaa malahan kasoo qaad ma lahayn, lagama warqabi jirin, meelo micnaha laga warhayo ma lahayn. dhalinyaro iyo fanaaniin oo aan jeclayn hadda magacaabo laakiin waxaan magacooda u qarinaa aan garanayninba baa ninkan buubuunshay, muuqaala ka duubay, inta u wadwaday kuwaa oo ah duli. warfiyuwiska meelo badan buu wax laga heli karaa jira, laakiin dadka nooca oo kale ah markaad aragto waa dad yacni qof waalidkii ku dhiiraday inuu yiraahdo hooyaday darteed baa saan u samaynayaa, xaaskaygiiba halkan lagu sameeyey, waa la cunsuriyey, walaa balaa qof dhahaya yacni qof noloshiisiiba maaraysan la, yacni wax adigu fiyuwiska waxaad ku heli kartaa wax ay tahay male. marka dhalinyaradan baa ninkan heerkaa soo gaarsiiyey, soo riixay, dad barbaray, baraankii wax baktiyo aan loo joogin la sameeyey. deetana wuu iskala waayay, wuxuu xogaa dad baa ku yaqaana. waxaan arkayay isagoo soomaalinimada iyo calanka Soomaaliya iyo ummadda Soomaalida Muqdisho isagoo caayay, aflagaadeynaya, cirkaasana ku jira ka dhacsan. waxa uu soo socdaba tixsigii buubu badan, marbuu digsi kurka waxaa la yidhaha food kuleel badan dhex laga dhacaa. tixsigii buubu badan, marbuu digsi kurka waxaa la yidhaha food kuleel badan dhex laga dhacaa. wiilkii siduu u socdaba hadda wuxuu marayaa inuu Turki lagu halagalay iyo dowladda Turkiga uu lagu kula jiro, lagana yaabo maalmaha soo socda warkiiga ogaa doontiin in dil lagu xukumo, dilkaas waliba dadalaa ah. dadkan dad qosla ma Turkigu nacamleeyanimo iyo reer galbeed iyo kana walaa iyo kan ma ogolay iyo hebel qof in la dilay iyo diinta caayi ma ogolay ma yaqaanaan. diintan sideedaba ilaaheeda ilaashanaya, dad baan awoodooda ku jirtaa in ay qofkii diinta caaya ay sidaas oo kale ogolaan. waxaa laga yaabi lahaa maanta hadduu wiilkaas Soomaaliya ama meel kale joogi lahaa loo garaabi lahaa oo la dhihi lahaa ninkan waa qabyaalad baa saan waa loo nixi lahaa, reebel qof u nax u heli lahaa. laakiin maanta dad aan in hebel iyo heblaayo iyo kana aqoonin, wiilkan waa Soomaali kana aqoonin, diintooda aan ka kaftamin buu gacanta ugu jiraa. waxaa laga yaabaa sida hore kugu sheego in la daldalo. ilaahay meesha iyo meel ka daran kugu sii fogaanay. aad baa u masdaasho muuqaalka shashkiraysa iyo muuqaalka buuxsan.